basadir wada aan ku cafiyo ma jidha maanta isagu iba cafin jirin turkigu ka yimid oo tumuhu soo beerta liigu yiri islaamihii bay islaayeen aan ka faa'iideysto fursadda warwaaba kuwaan halkaan ay gabran yihiin ayagoo aad moodayso loo kuur fadhiya boorsada lacagta maan ag dhigayaayo ku khalkhalinaya war waa idin salaamay waa la sheegay odagii xumaayna islayseen oo ugu labso kaasi tabar iyo taagmin hayne ii warrama bal maanta rada wax ma taraa ninka afka kala baxmo badaarin tabar iyo taag ku dhaama ukaade haddaan ku tusayaa waxaan ku dhaamee tani waa boorso lacaga oo sideedii u xirxiran waxaa idin sheegayaa baahi dambe is arki maysaan haddii aniga xaggayga noqotaan taladu waa mar aad garan weyday iyo mar aad gaari weyday iyo mar ay kula gudboon tahay barbal sugsug allaha baa isu ruuxaysaa meelaan taada ku raacnaa tala ah aniga tayda waxba ha ii raacinin aanu cidna baryimayo boorso dhan oo dollar aan wataa halkaa fiiri waxa wada sariiran waa dollar wanaag baan baryayaa anigu idinka dan idin tahay ama kaa dhaba adeero hadda boorsada dhan wada lacag baa waaba buuxda arka ka xiran tahay raalli ah adeer lacagtan waxba kuuba taalle labadan markab baan rabaa anigu war haddeer yaa waqti kaa dhumin oo kabuhu kaa dhammaan meeshaan maraakiib kaa raacmayse marba haddaad qofka ina diraacaha dhulka u jadheen gurigaan idinkaa calaa foorjo idinku dhisay waraa kor ku qabo kaamirada kor ku qabo halkaa dabaq laba biyaanaabaa xitaa saaraya soo wareeji dhinacan kale saa ugu qabo yaaba isgaarayba daaqada xaggeeda kasoo wareeg waryaa isuga anaa idiin soo duubaya idinku waa culus tihiin waryaha soo wareeg usoo u duub wejigaan oo dhan u duub ilaa hoos galbeedka iyo ilaa gudaha shishe iyo kulli u duub waxaan rabaa inay ku ashqaraaraan ilaa kor haddaa u duubtay soo gal adeer soo gal marag iyo markhaati waxaan ka ahay wariye gacantiisu fadhida inaad tahay afarti jahaba waa idiin soo duubay wiilkii waa kan adeer la kaalay waa hubaa inaad ku ashqaraaraysaan adeer wax yar noo kaadi wax yar waa wada hadlaynaa idil iyo astur ma imaqlaysaan aniga sidaad sharaftayda iyo karaamadayda iyo sumcadayda u dhowdheen baan labadiinaba idinku abaalgudaya marwadaydii koowaad baa tahay adiguna waxaa tahay marwadaydii labaad weliba adigu bilad sharaf baad mudan tahay dhowr jeer baad abaal ii gashay waaw mahadsanid naa ilowsha dhoweyda heshiiskii ma iiga baxdo adiga ninka laabtiisa ku ordaye naa gurigaan oo dhan ninku soo xaalmarin inoola siin ma ilowday aad waa maxay dagaalkaa sheegaysid isdaji astur sidaa ma aha waan ogahay inaynu kala dheeraanay oo dagaalnay oo amuuri dhacday dadkuna waa isqabtaan oo adduunka carab iyo ilka ugu dhow iyaguna waa isqabtaan marka iska ilaawo wixii dhacay waxa anaga nagu sasabi mayso gurigaan mooshada iyo qabyada ah ma rabno adna ma isbedeshay war balukaada idinka dhex baxay horey baa loo yiri dagaal goonyaha uu ka dhasha caruur baa noo qabta marka waxaa nagu sasabaysid na maxaa idinka sabanayaan maasaxaanki baa idinka daraya gurigaan idin gaday na adiga goorma muqfaradii lagaa qaaday maxaa u arki laadiin gurigaan idin dhisay oo idinku abaalmarinayo raniga hay soo fuulun iga leex buuq iyo qayla ma rabee gafuurka day ruuxana ku fool xumaa na kaalay gabadha afka kala baxdo isba jeedin miyaa ma orda naga taga dugaag baa tihiin naga dugaag dad moodnay ha ilaawi 20 jir boorsa lacag wato inuu nabaray na dhaaf yeelkiisi naga tag neef yaho oo hadda naagaha meel diraac baa uga haraya war waxaa ninima maaha waaba xaniya taabad waajibkiisaan ka soo waraabinaya ina diraac soo aniga igaba hari waayin soo noloshaydii iyo horumarkayga caqabad kuma noqon halka haddaan lagu aasin maradan ku jiro nin kuma jiro inuu igu magac sheegtaa dhiman waryaa makhaati ka ahaada tiisii baa soo dhammaatay axadka reera damba dhibi maya oo madaxiisa shimbiru ka cabayaan kaalaya soo arkay idinku